soo dhawaada insha Allah soo dhawaada insha Allah bidnillahi kariim dadka Soomaaliyeed ee ka joogtaan soo dhawaada soo dhawaada insha Allah soo dhawaada waa barnaamij yar oo kooban insha Allah soo dhawaada asxaabta qaaliga meel kasta joogtaan aad baan idin soo dhaweynayaa waa walaalkeen Cabdixakiin Cismaan Nuur oo ka magac dheer Sheekh Soomaali xarta Sheekha Minneapolis gobolka Minnesota soo dhawaada Cabdiraxmaan aad baan kuu salaamay inaad gacaliyo noolow ilaahay khayr ha ku siiyo noolow inaad gacaliyo kulligiin soo dhawaada maasha Allah soo dhawaada insha Allah kulligiin qof kastoo Soomaaliyeed waajib ayaa saaran inuu daafaco sharafta dadka Soomaaliyeed marka insha Allah soo dhawaada wax la yeelaya maaha ama qofka aqbalan qaar hore aanu ka diidnay inay sharafta ummadda Soomaaliyeed ay meel uga dhacaan oo caayaan marka soo dhawaada insha Allah bidnillahi kariim soo dhawaada waxaan idinku sii suganaa hees yar oo aad u qiiro badan ila dhageysta Soomaalideydi oo midaysan baan rabaa shanteydii Soomaaliyeed dhageysta insha Allah afarti walaalaha ayaga ana doonayay xuriyadii iyo aamus walaala iminkan keenayaa aamuso yowna maqlin cadow yowna maqlin aamus insha Allah bidnillahi kariim barnaamijkan waa barnaamij xasaasi ah sheer gareeya sharafta Soomaaliyeed in qof caayo oo magac ku raadiyo oo yiraahdo dadkaygan caayaya oo dadna ku yiraahdaan waa ku taageeranaa wax la aqbalaya maaha reer Minnesota ayo message-kan ku socdaa qof baa inagu soo fool leh marka sideen uga hortagi jirnay waxa xun ayaynu uga hortaganaa insha Allah bidnillahi kariim soo dhawaada heestan ila dhageysta kasta
kastaba ha noqotee sojireenka dhaqankiyo soomaalinimadan dadka kaga sarrayna sabool iyo tijaarana sahay waxay u haystaan dadan kala saluugine isa siiyabaanahay sabool iyo tijaaro sahay waxay u haystaan dadan kala saluugine isa siiya baanu nahay waa bulshada kaliya ee laga heli karo dadka Soomaaliyeed in qof aan waxba haysan oo aan shaqaynayn muddo sanada uu ku agnoolaan karo walaalkiis oo uu ka heli karo meel uu seexdo wuxuu cuno wuxuu cabo wuxuu xidho iyo bill phone intaba America oo ogtihiin nolosha taala say u adag tahay America oo ogtihiin nolosha taala say u adag tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee bilaa shaqada ahi qaarkood way isku hoos nool yihiin taasina sabool iyo tijaaro sahay waxay u haystaan dad aan kala saluugina isa siiyabana isma siiyaan dadka kale taas waxay ka mid tahay dhaqamada wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed ku soco heesan dhageysta sabool iyo tijaarana sahay waxay u haystaan dadan kala saluugine isa siiyabaanahay kuwii cadowga saaro midnimada sameeyo saqda dhexe habeenkii surtay calanka baanahay kuwii cadowga saaro midnimada sameeyo saqda dhexe habeenkii surtay calanka baanu nahay Soomaaliya waa dalkii ugu horeeyay ee qaaradda Afrika ah ee lagu garaaco diyaarad halkaasna waxa ay ku tusaysaa in dadka Soomaaliyeed yihiin dad geesiin ah kuwii cadowga saaro midnimada sameeyo saqda dhexe habeenkii surtay calanka baanahay Cabdinuur Barkhad salaan saraan taagay kaliya laab Cabdinuur Barkhad aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa seedi ila soco Soomaalinimada waa inaan dadka waa inaynu ilaalinaa dhaqankeena waa inaynu ilaalinaa diinteena waa inaynu ilaalinaa wadanka aynu joogno ee sharcigiisa haysano sharcigiisa we are American baad waxaynu nahay Soomaali islaama si kastaba ha noqotee sojireenka dhaqankiyo soomaalinimadan dadka kaga sarrayna si kastaba ha noqotee sojireenka dhaqankiyo soomaalinimadan dadka kaga sarrayna kastaba ha noqotee sojireenka dhaqankiyo soomaalinimadan dadka kaga sarrayna maandeeq anaa kuu soo sheegi doona insha Allah barnaamijkaygii ayaan gudagalayaa horta dhammaantiin inta meesha ku jirta ee Soomaaliyeed waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta magacayga iyo muuqayga taqaanaba وعبد الحكيم عثمان نور أو كما قال الشيخ صومالي مقالة مينيابوليس قبل كم مينيسوتا حرت الشيخة وهم برنامج كان مانتا أسوأ قري براها بالشدة إلا إيا الشلي وحا هريي ويل صوماليات ولا يرهد عبد إفتين وبوك قري قفك إنو بالشدة كسو كرديو وواحد في عام
وانا wax aad u wanaagsan in aad bulshada wax ku soo kordhisid wiilku waa wiil Soomaaliyeed wadanka America waxa uu ku soo galay fiisaha loo yaqaan lottery waxa uu joogaa muddo 4 sano ah run ahaantii waa dadaal ma xuma qof 4 sano jooga oo buuq qoray waa fiican yahay laakiin ma aha ilbaxnimadu iyo caanbaxo inaad caydid bulshadii aad ka timi horta marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaad dib u wada jaleecdaan magaca buugga oo u bixiyay oo ah Call Me American Call Me American magacaas horta waa Call Me American يعني wadankan waynu wadanim isaga waliba wuxuu ku yimi fiisaha loo yaqaan lottery oo any time xitaa haduu khalad gal laga celin karo wadanka oo sharciisa wada garanaysa laakiin dad qofba si ayuu ku yimi aniga idin la hadlaya America waa jecel waxaan ka soo baxay wadanka Yemen waxaan transit ku soo maray magaalada Qaahira airport ayaa la igu sugayay waxaan transit ku soo maray magaalada Roma airport ayaa la taagnaa waxaan soo maray magaalada Frankfurt airport ka la taagnaa waxaan ka soo degay Chicago State airport ka la taagnaa Minneapolis baan airport ka la taagnaa saamarka la soo qaaday guriga walaashii la keenay airport ka dhexdiisa ayaa check saa la igu soo qoray la igu qoray check airport ka dhexdiisa thanks America American baan sharci baan qaatay passport baan qaatay laakiin anoo sharci qaatay oo passport qaatay oo wadankii u dhaartay oo aaminsan inaan nin Soomaali ahay laakiin qaatay dharashadii Mareykanka I love America America waa wadankaygi waana soo dhaweeyeen nabadgelyana siiyeen sharciyana siiyeen dhaqaalena siiyeen waxbarashana siiyeen wax walba thanks baan leenahay mana ka soo horjeedno waana jecelahay waana u dhimanana laakiin ma jiro qof American oo ku dhashay wadankan aad joogtid ee sharcigiisa lagu siiyay oo ku dhahay Call Me America intuu buu qorayna qaayay asligiisa hor awooyaashiisa ma sheekimeen no markis cadaanka milyaneerada wax bartay qorayaasha ah suxufiyiinta waxaad ii sheegtay ee wadanka ku dhashay qof intuu buu qoray yiri Call Me America igu yar American ma jirto macnaheedu ma qofku qoraal waa qori karaa bugu qori karaa laakiin igu yar waxaasi waa يعني magacu horta magaca markii ugu horeysay boodis buu ahaa number 1 wiilku waxa uu meel kaga dhacay oo uu baabi'iyay oo aan dhaala iska tiraynin dhaqankii Soomaaliyeed sumcaddii Soomaaliyeed oo uu baabi'iyay dhowr page waad akhrin kartaan buugiisa waad eegi kartaan waxa uu ku leeyahay hooyaday ayaa waxa ay ka timi Baydhabo fiiray hadalka oo fiirsada waxa ay timi Muqdisho waxa ay hoos fariisatay taaladii dhagax tuur maalintii oo dhan bay fadhiday maalintii oo dhan taaladii dhagax tuur bay fadhido waxay sugaysaa wiil hooyaday inuu dhagaxa ku soo tuuro markuu soo tuuro way ka tagtay buu shan casho ayay wax u soo noqonayso yiri hooyaday inay dhagaxaas ninkaas soo tuuray ay sugto halka maxaa kaaga cad inuu leeyahay hooyaday jaahilad bay ahayd subhanallah okay qoraal kale dib u fiiriye buugiisa waxa uu yiri hooyaday lama gudin hoostii hooyadiisu ka sheekay subhanallah wuxuu yiri lama gudin aabahay ayaa hooyaday guursaday aabahay hooyaday qaba ayaa xaafadii hooyaday waxay ku cayday buu ma gudna markaas ka bacdi baa la guday waa hoostii hooyadiis ayuu ka sheekay waxa uu caayaya oo buuga ku aflagaadeynaya wiilal ay roommate ahaayeen oo markuu wadanka yimi soo dhaweeyay okay Soomaaliya totally wiilkaasi buugga uu qoray waa buug uu ku baabi'iyay sumcadda iyo sharafta Soomaaliyeed meel kaga dhacay wax la diiday iyo wax la dafray ma wax kasta waa qoraal waa record okay wiilkii baraha bulshada aad u wadwaday Soomaalida waxay ku maamaan riyaadada dublayin baa ay dabadooda ku qarsan lahaayeen wiilkii waa cararay fiiriya hadalka u fiirsada islaantii Arizona joogtay ee bulshada Soomaaliyeed intay soo dhaaftay
caruurteedii cayday ka been sheegtay waalidkeed ka been sheegtay waalidkeed ka been sheegtay ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku haysa adogeedeen buu u tagay waxay tiri waxa ay yimi wiilkii iyo nin cadaan oo saaxiibkiisa halkaas wiilkii iyo nin cadaan oo saaxiibkiisa ayaa yimi halka iyana calaamad casiyar saara steedka wiilkan ku noolaa waa laga wada yaqaan qof kasta oo Soomaaliyeed oo damiirkiisu nool yahayna buugaas marka uu akhristo waxa uu dareemi doonaa bahdilka iyo sharaf dhaca uu wiilkaas yar ee Soomaaliyeed uu u geystay shacabka Soomaaliyeed Soomaali haddaynu nahay markii aynu qurbaha nimi way dhaceen dad badan oo noocana qaar diinta caayay qaar nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam caayay wax walba waa dhaceen ayaan xirsi ayaad ogeydeen oo ku jirtay baarlamaanka wadanka hole wixii ay samaysay iyo diinta say u aflagaadaysay oo dhan waad ogeydeen aakhirkiina shacabka Soomaaliyeed iyo dadka islaamka ah meel ay uga soo wada jeesteen waana tii laga soo saaray wadanka hole waxay nagu cusub ma aha inaynu aragno qof Soomaaliyeed oo inta uu bartay luqadda si khaldan ilbaxnimadii u fahmay ama bulshadiisa caaya ama diintiisa caaya inteena sharciyada qaadatay all we are America and we love America laakiin America ima oranayaan kaalay dadkaaga cay oo dadkaaga ka been sheeg kaalay diintaada cay nobody ugu bashkarayn kara ama qof qasbi kara qof ma jirto qofkii doonaya inuu wadadan uu qaado ayaan xirsi meesha ku dambeysay isweydiiye dadka Soomaaliyeed ee diinta caaya ama Soomaalida meel uga dhaca ha isweydiiyaan ayaan xirsi meesha ku dambeysay Soomaaliyay waxaan caawa fariin u dirayaa anigoo sheekh Soomaali ah dadka Soomaaliyeed ee degan gobolka Minnesota fariintan aan dirayaa waxay tahay waa ogtihiin sumcadda iyo sharafta aynu ku leenahay gobolkan aynu degannahay siyaasiyiin waxaa jira soo baxay oo la doortay ganacsiyada ugu waaweyn ee Soomaalida adduunka ayaa ku yaala gobolkan Minnesota dadka adduunka ugu sharafta badan baa degan waxaan u dirayaa fariin dhammaan culimada siyaasiyiinta ganacsatada iyo dadka bulshada sharafta ku dhaxay wiilka yar waxaan idinka codsanayaa before aydan anigana eegin meediahana aydan eegin waxaad akhridaan buugga uu soo qoray buugga markaad akhridaan wiilkaas waxa wuxuu ku soo socdaa gobolka Minnesota dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee degan Minnesota waxaan ka codsanayaa anoo sheekh Soomaali idinkoo ilaalinaya sharafteena in wiilkaas la takooro in loo takooro sidii la iska fogeeyo sidii nijaasta sababtoo ah wuxuu meel kaga dhacay sumcaddii iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed inaad wax qortid oo bulshada ku soo kordhisid waa wax aad u fiican laakiin inaad ku soo caan baxdid dadkaygan caayaya oo dhahaya waa jaahiliin oo dhahaya waa kan ma jirto Soomaalida Minnesota joogta yaa ka dhaqaala badan oo ka xarakaad badan waa ogtihiin dadka ugu sharafta badan yaa jooga gobolka Minnesota saa darteed fariinta aan idiin soo dirayo waxay tahay arrintan laga taxadaro dadka aan ixtiraamka u hayaanoo sheekh Soomaaliya ee waliba mas'uuliyiinta ah businessyada ah culimo diinka ah waxaan idinka codsanayaa buuggaas fiiriya oo gala dhowr page ka akhrista Google buu ku jiraa qiimeeya wiilkaas Minnesota u soo socdaa Soomaali maaha nama matalo mana arki karna mana eegi karta meel la istaagin
qofkii Soomaaliyeed ee Minnesota degan ee wiilkaas sumcadda Soomaaliyeed baabiyay lagu arko ha ogaado isaguna waxa uu ka mid yahay kaas oo kale qofka nijaaska oo la iska dheereeya ma ka yeelano qofna inuu caayo sumcadda iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed I am Somali American aad baan ugu faraxsan inaan Soomaalina waa dhaqanka adduunka ugu fiican bay leeyihiin muslim baan ahay alxamdulillah rabbil caalamiin alxamdulillah rabbil caalamiin sidaa darteed qofka Soomaaliga ahi ee ama luuqadda ku hadlaya ama wax qoray ama wax bartay waa inuu dadkiisa ku faanaa ilaahay baan idinku dhaarshay Soomaaliye bal gabadhan idin shidayaa gabadhan taariikhda ay Soomaali kaga jirto wallahi baanan u aqoonin habeenkii aan soo sheer gareynaya cid alla iyo cid ay Soomaali ka tahay inaan aqoonin So yeah. So إن شاء الله بإذن الله كريم نيجي حماضي بدأ Yes, وكان واهلي. Okay, gabadhan ba waa Soomaali. Ila arka. Everybody. Hope everybody's doing well. 你们好吗? Lately, I've found myself a lot more comfortable expressing my thoughts in Chinese, so please excuse me if my line of thought isn't as well organized when I'm speaking in English. But if you bear with me, I promise you will get out of here smiling by the time I end. So, as introduced, my name is Hodan Osman, and I come from a country called Somalia. Any of you heard of it before? Yes, that's not loud enough. Thank you. What do you know about Somalia? That's what I want to know. It's okay. I won't mind. Shout. What do you know about Somalia? 海盗. It's okay. You can say it. Number 1, 海盗. Number 2? Sorry? Very good. Okay, that's a lot of very good information. There's one thing you don't know about Somalia. Somalia is the land with the most beautiful women in East Africa. Agree? ايش على قبل؟ On a more serious note, Somalia is one of the most beautiful countries in East Africa. Yes. Only somebody who's been there would know. Because I also only found out very recently. Yes. I'm Somali, yes, but I was not born in Somalia, and I was not raised there. I went there at a later age to discover my own home. A home that I thought was completely different, because in the media, the Somalia I saw was suffering from drought. The Somalia I saw was suffering from famine. The Somalia I saw was suffering from civil wars. So like you, in my imagination, I thought that Somalia must be a terrible place to live in. To my surprise, that's
That's not the truth. Somalia has one of the most beautiful coastlines and beaches on the African continent. Allahu Akbar. Somalia has one of the most diverse and most beautiful wildlife in the African continent. Somalia has some of the richest farmlands on the African continent. And these are facts. I'm not saying because I'm emotional about my home country, but these are facts people know. Not a lot of you know about, though. Why? I study communication studies. I analyze media. I analyze film. I analyze content in media. And it's always surprising why the stories we hear in the news, in the films, are always sensational. They talk about the war, they talk about the pirates, they talk about the famine, they talk about the drought, they talk about everything that's negative. How many of them speak about the positivities that lay there every day? Yes. How many of them speak about the everyday stories of people just living their normal lives? How many? I'm sad to say, not many. And that is why people have the wrong idea about the richest continent on the entire planet, Africa. Africa in recent years became synonymous with underdevelopment. It became synonymous with chaos. It became synonymous with everything that's bad. And that's sad, because that's not the reality on the ground. People who've been there, people who have visited, people who have seen for themselves and have lived there know that Africa is a land where children are happy. I'll give you a very simple example. Last year, I went with some of my colleagues to Zanzibar. Anyone from Tanzania? Nice. Zanzibar is one of the most beautiful places I've ever visited. But you know what's more beautiful? The children everywhere are just laughing and smiling and running around. My Chinese friends were surprised, and they just stopped and said, "Eh, 非洲的小孩很开心哎." I'm like, of course 他们很开心. Of course they're happy. They have a blue sky every day, right? It's true. They're not missing anything, and they don't know that they're missing anything. And that's the beauty of it. Now, we come back to what it is the reality in Africa today. Yes, there is lack of infrastructure connectivity. Yes, there is lack of technological improvement. Yes, there is a lot that's lacking on the continent. But that doesn't mean that poverty was Africa's destiny. I believe that poverty disrupted Africa's destiny. I'll give you a very simple example. In the 1980s, Somalia was the #1 exporter of bananas in the world. Yes. Would you believe that? Yes. It was the #1 exporter of bananas in the entire world. Somalia's bananas were amongst the most tasty in the entire planet. Yes. True. Today, we don't have anybody farming. Why? Everybody thinks there's a beautiful life in Europe, in America. They're taking boats, risking their lives, and they're dying because of illegal migration. Yes. Because they don't know what they can produce, the wealth they can produce in their own lands, right in their neighborhoods. They don't know the wealth they have. Yeah. They only see in the media the high rises in New York and the beautiful streets in Paris. Yes. Wouldn't you also want to go there? 13 years ago when I came to China, almost all of my Chinese friends longed to go to America, longed to go to Europe. Why? Because they saw those places as extremely developed, as beautiful, as fascinating. Now, what about you young graduates, especially my Chinese friends here at the stage?
When you graduate, where do you want to work? Beijing, Shanghai, Shenzhen, right? Am I right to assume that? Yes. Why? Because in 13 years, Beijing, Shanghai, Shenzhen became a lot more beautiful than some of the leading capitals in the world today. Last year, I visited Los Angeles, New York, Washington, London. And guess what? When I sat in the subways in these cities, I kind of felt a lot more comfortable in the subways in Shanghai. And that's the reality of development. It's a moving wheel. It's never standing still. It's always moving. So however you see Africa today, trust me, in 10 years' time, it will be completely different. Another example. 13 years ago, I came to China. My first stop, naturally, was Beijing. And then I was heading to the university where I was supposed to start my Chinese language. It's a city called Yangzhou. Yanhua Sanyue. Xiayangzhou, very good. Yangzhou is a beautiful city in Jiangsu province. Now, I took a train from Beijing to Yangzhou. It took me 14 hours. And I sat on Wopo. Do the young people in the audience know what that is? I think it's beyond your times, yeah? Maybe the gentleman in the front would know? Yes. Now, for me, it was the first time I take a train. It was fascinating for me how slow it was. How it stopped in almost every little town we went through. And how long the journey was. I couldn't sleep, although I was extremely exhausted. Why? Because I thought I would miss my stop. I did not speak a single word of Chinese, and everything was in Chinese. Okay. Most importantly, all of the cities sounded alike. How am I going to know when I'm in Yangzhou? Okay. So I couldn't sleep. And I kept asking and asking and asking, are we in Yangzhou yet? And nobody spoke English. Luckily, I found my way. Now, what about today? Today, I can take a train from Beijing, and it will take me to Hangzhou in how long? 5 hours. How amazing is that? That is the transformative force of development nobody can stop. However, what does development actually need? I mean, the same years that are passing while I'm in China are passing while my family and friends are in Somalia. Difference is, when I'm in China, every day I look here, there's a new building. I look there, there's a new road. I look there, there's a new train station. What about in Africa? Not many countries in Africa have witnessed this kind of transformative force. Ethiopia is one, Djibouti is another, Kenya is another, but why? Let's ask ourselves, how come some countries in Africa are witnessing transformative changes in their countries and the lives of their people and their socio-economic development, while some aren't? It's because most of Africa's countries are yet to actually take a long-term vision of development into their policy of governance. And that is where China succeeded. China planned for this 40 years ago. Everything you see today was planned and envisioned and continuously implemented. We don't have a lack of plans in Africa. When I went to Somalia, I visited almost every single ministry we have. I looked in their cupboards. They had these huge books of researches, of plans, national development plans.
that are gathering dust. Why? Because when a new minister comes, he wants to make a new plan. When a new government comes, they scrap everything out and they come up with something new. I mean, I'm all for change and everything, but still. Okay. isaga aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin timeka ay siiseen iyo dhegaysiga ay ila dhagaysatee waxaan u soo qaatay hodan cusmaan cabdi waa gabar Soomaaliyeed markii ay furaysay speechka yaa yaqaan dadka Soomaaliyeed waxay ku futay waa ujeedeen sharaftii iyo cisigii sida ay dadkeeda u amaantay iyo sida ay dalkeeda u amaantay war ilaahay baan idinku dhaarshay dadka inaga dhaqankeena aynu caayano ee weel yar oo doonaya inuu ku soo caan baxo ay dadkiisa qofka adduunka jooga ee Soomaali ka dhaqanka wanaagsan waayo ma jira maanta adiga oo wada cidla taagan in qof kale intuu ku yimaado oo ku caawiyo oo lacag ku siiyo oo gaas kugu shubo oo gacanta ku qabto ma dhacdo aan ka ahayn Soomaali ma dhici karta adiga oo nin cadaan oo gurigiisa nin kale oo cadaana cunto ka siiya oo keena oo kira ka bixiya oo gaas gaar ugu shuba oo caawiya aan Soomaali ka ahayn ma dhici karto dhaqanka aynu haysano dhaqanka ka wanaagsani waa kee hadaba okay diinta aynu haysanaa waa islaam diinta ka wanaagsani warte buug baan qorayaa waxaan caayayaa awooyaasha iyo isirkayga meeshan ka imi waxaan ka sheekeynayaa candadii hooyadii baan been ka sheegayaa oo dhahayaa hooyada iyadoo weyn oo la gudin baa lagu caayi jiray inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun Soomaali haddaynu nahay dagaal sokeeye waa dhacay siyaasad iyo qabiil la isku dilayna weligeed ay dhici jirtay laakiin one thing ogaada laba arrimood baan alxamdulillah rabbil caalamiin in aan Soomaali nahay oo aan dhaqan leenahay number 1 in aan islaam nahay oo diinta muslimka haysan alxamdulillah allahumma inni laka alhamdul kathir call me America abaalka ay dadka Soomaaliyeed u dhagashay oo dhani wax la gudi kara ma aha adigu waxaad ku soo gashay bakhtiyaa nasiib cidna kuma soo dhaweynin laakiin anaga waa nala soo dhaweeyay waxaan leenahay thanks America God bless America okay so محمد مid la yiraahdaan meesha ka saaray akhlaaq xun kaadi okay waxa weeyaan Soomaalinimadu waa sharaf America waa nimi baasaboorkii waa nala siiyay waan qaadanay waxaan leenahay thanks America God bless America waa wadankaygi waana soo dhaweeyeen laakiin original Soomaaliyan ka nimi laakiin macnaheedu ma aha call me American wadankii aan ka imi tarash buu ahaa qashin buu ahaa hooyada baan la soo gidin hooyada baa dhagax tuur soo fariisatay hooyada baa country hooyada baa cawaan ahay no ayda waalidkiisa caayay iyo ayda dadkiisa caayay ayuu doonayaa inuu ku soo caan baxo markaas habar faasuqada oo ilaahay iyo aadmigiisuba nacay oo aagtiin intay soo fariisatay ay doonaysaa inay ka dhaadhiciso dad Soomaaliyeed waa wiil Soomaaliyeed oo kana waa wiil sharaf leh waa kana no ayda Soomaali sharaf laguma yeesho lagama yaabo marna inaan dadkayga caayin I am Somali alhamdulillah I am Muslim alhamdulillah I am American citizen alhamdulillah laakiin ta meel soo fariisto no inaan dadkayga caayin Soomaali haddaynu nahay dhaqanka ugu wanaagsan baan leenahay Soomaalidu waa dad isku nool waa dad isku daba nool waa dad isdhaqaaleeya waa dad isjecel lagama yaabo maanta dad waxa garan kara dad badan oo okay waxa weeyaan lagama yaabo qof Soomaaliyeed oo maanta cidla taagan haddii qof Soomaaliyeed kale uu arko inuu ka dhaqaaqayo ka yaab mana dhacso weligeedna may dhicin waa dadka kaliya ee wax isasiiya Soomaalida isteedada kala joogta marka ay yimaadaan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ay yimaadaan
أبين ولا يابا وحيانا ما شاء الله ودن كان يعادي أي نجونا هذا الكي إذن كوبا دين مايو وحان إذن كيغتا يا دردارة dadka reer Minnesota fiidowgaani yaan la dhayalsan dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota degan sharafta ku dhaxleh siyaasiyiinta culimada diinka ganacsatada iyo dadka sharafta iyo shacabka waxaan ugu baaqayaa inay wiilkaas buugiisa fiiriyaan 3 page oo kamid ah حيسكو بدينينا اوكي هذا الصومالي عاي ماشي يجري ميس صاحب اسكيا ومن صومالي عاي بلو قري وحقول لي صومالي دو ضد منهن ضد ادو في عم بيننا Soomaalida Minnesota waxaan idin dirayaa maaskan idin soo dirayaa cunugaas halaga taxadar cunugaas yaanu inagu faafinin sumcad xumo kale oo Soomaaliyeed siyaasiyiinta Soomaaliyeed sida nijaas la iskaga fogeeyo wiilkaas iskaga fogeeyo ganacsatada Soomaaliyeed culimada diinka kulli dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota inta magacayga iyo muuqayga taqaanaba waxaan idin ogeysiinayaa in aad cunugaas sida nijaasta la iskaga fogeeyo iskaga fogeysaan haddaa ku aragtaan moolasha Soomaalida qofkii Soomaaliyeed ee moolasha ku arka waa inuu sida nijaasta cunugaas iskaga fogeeyo yuuna ina soo dhaxgalin hadduu cid caayo meelaha ka soo caayo caay inta uu yiri baa inagu filan qofkii Soomaaliyeed ee damiirkiisu nool yahay ee buug akhristoona caawa waad soo wici doontaa inta magacayga muuqayga taqaano المهم waxaan idin kaga tagayaa Soomaalidu waa dad sharaf leh American baan nahay American citizen baan nahay laakiin ma caayana dadkayaga ma caayana diintayada ma caayana dhaqankayaga waxaanu nahay dadka adduunka ugu dhaqan wanaagsan waxaanu nahay dadka adduunka ugu diinta fiican islaam alxamdulillah rabbil caalamiin waxaanu nahay Soomaali habi aan kuna waxa weeye dadkayga caay maayo qofkuna hadduu dadkiisa caayo horumar kuma gaaro hodan gabar Soomaaliyeed bay ahayd say hada sano weydinkii arkayeen hodan ba waxa laga sheegay waa taas cunugaas Soomaaliyeed iftiin hebel la yiraahdo yaana soo dhawaysan Minnesota inagu soo socdaan Minnesota waa gobolkeennii inaga degan inaga ugu badan sharafteena iyo sumcadeena iyo cizigeena aynu ilaashano مساجد Soomaaliyeed baan lagu soo dhaweyn karin business Soomaaliyeed baan lagu soo dhaweyn karin qof siyaasi oo Soomaaliyeed baan la kulmi karin shakhsi kasta oo Soomaaliyeed oo la kulma oo damiirkiisu nool yahayna waxaan ka codsanayaa sida nijaas loo fogeeyo inuu cunugaas u fogeeyo balanteenu waxa weeyaan inaynu wadankeenu degannahay sharcigiisa aanu ixtiraamno we are American baynu nahay citizenkii baynu qaadanay wadanka waa u dhaaranna laakiin sam waa inaynu dhaqankeena iyo diinteena waa inaynu haysan cid qasbi karta iyo cid oran karta ka tag ma jirto cid kugu qasbi karta diintaada iyo dhaqankaaga ka tag ma jirto ilaahay baan idinku dhaarshay Soomaaliya ma waxaan caay karaa dhaqankii aniga awoogayga afaraad yaa ka dhaqan fiicnaa boqolaal geel u lahay darwiish buu ahay ma waxaan karaa awoogay waran busitayo dad buu lan jirayo waxbu dhici jiray waa gabi jiray no gabayadiisi baan ilaa hadda akhrista awoogayga ilxaad Soomaali waa dad sharaf leh caayda Soomaaliyeedna horumar lagu gaari maayo ninka qofka doonaya inuu caayda Soomaaliyeed horumar ku helo we are Soomaalina waa jecel kaalay naga go ugu dambeyn waxaan idinkaga baxayaa waa idinka tagayaa insha Allah bidnillah kariim midnimo iyo inaan daafacno sharafteen ma yeelana cunug yar oo wasakha oo nin cadaana gacanta haysta inuu caayo diinta dhaqanka Soomaaliyeed oo diinta wax ka sheega war cunugan buugiisa gala war diintiiba aflagaadeynaya war dhaqankiiba aflagaadeynaya maxay noo haray shaakir ciise abti aad baan kuu salaamay I think abti inaad aragtay buugan oo aad akhrisateen intiina wax fahmayso oo dham inaad aragteen
dhowr page oo ka mida buugga fiiriya suldaan cabdikariim waxaa la yidhaahdaa hebel iftiin baa la yidhaahdaa buug buu soo qoray uu dadka soomaaliyeed dhaqanka ku caayo wallaahi bilaahi tallaahi waxyaalaha buuggaas ku qoran qofka akhristaa wuu yaqyaqsoonaya soomaalideena minnesota ma yeelano waa kee cunugaas cabdi iftiin baa la yidhaahdaa ashwaaq deri cabdi iftiin baa la yidhahdaa fiiri ma yeelano in sharafta ummadda soomaaliyeed meel looga dhaco okay cabdinuur barkad ilaahay ku ciseeyo waad akhriday buugga ma ii soo geli kartaa lifeka haa ama maya labadaa mid ii soo qor cabdinuur barkad haa ama maya labadaa mid ii soo qor okay so cabdinuur barkad baan raadinayaa okay cabdinuur barkad waa ku soo dalbaday عبد الحكيم وان أخري بوجا soo dhawo cabdinuur barkad أكو مقلة يوسف عاد haye buugga waa akhriday soo maaha okay ka sheekee والله وحنا أخري شرية تبون بيج بانك أخري haye وحياله بدن بانك أركي haye كم بدها هو يدي مركي دليسي وان أركي يوكل وان دريمي يبوري وقراتي waa been hooyada markay dhashay waan dareemayay aabaha iyo hooyadii waqtigii aan dhalanayay waan ogaa buu yidhi macnaha sidoo hadalku waan ogaa geed baa ku hoos dhashay buu yidhi adigu waxyaalo badan oo aan fiicnayn ban ilaa hadeer ka akhriyey muxuu yidhi markii aan dhalanayo waan dareemayay wuxuu yidhi markii aan dhalanayay aabaha yar kalaa yimiddo geed baa lagu hoos dhalo markaas aniga lay dhalay buu yidhi haye anigii baa yaabay waa qoslay haye marka waxa kaloo ka akhriyey in uu ahaa nin basaas oo kale ah oo leh macnaha uu baqan jiray dagaaladii Ethiopia 2006 marka qoliyo cadaanaba wararka u geeyn jiray haye ka akhriyey marka okay labo inta wali la hadda ka akhriyey waxa la tahay xagga diinta wax ma ka sheegay ما فيرس قوة الدين ده حق الدين تولي ما يجين لكن ولو ونخرية ونبارية أنت قوة أوكي عبد النور برخدو من الدين توي قانا وطاي كوميونتي الصوماليات قول كم من الصوتنا دتك آد قوة شرفت بدن باطي وقتها هاي حالة ده إنه كل جرني إنه هاي دتك مقالة وصم عدا في عن صوماليات قبل كان دقيني مركا محاد كلها لنا سب الشدة الصوماليات شخص كان نوع عنه كلا نقص صفول له محاد كلها لنا سب الشدة والله waxaan kula talin lahaa horta dadku buugga ha akhriyeen markay akhriyeen xaqiiqada iyo waxa loo sheegayo iyaga ay arki doonaan hadal nin way ta kale nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri dayuuska wadaniin asxaabtii ma yaba yiraahdeen dayuuska waxa uu ninka dadkiisa xumaanta la jecel marka Soomaalida buugga akhriyaan oo ay tallaabo ka qaadan waayaan waa dayuusiin bay noqonaysaa macnaheedu haye إلى نقص مركب بوجها أخريان يا نقول بها أخريو صدق الله أخريو ويقانين مركب حقيقة هاي وجادان توحى في على يركين الله فريستان وإلى هذا داديرو وحن حاجتك كانت حقيقة دي حتى حيدي قرتي بوج الله حسابته بكرة سايتيشن كماش كأني يوحن وقرتي أدعو ما حصلت يا عبد النور حقيقة هذا شيء أدعو ما حصلت إلى خيرك وسيا نعيمة دعالي ii soo qor haddaan ku soo wici kara haa waa soo geli karaa naciimana aad bay u akhriday buugga dhowr page ii soo qor inaad tahay haddaas ku cabdinuur aad baad u mahadsantahay ilaahay cimrigaaga ha dheereeyo amiin amiin maasha allah thank you so much okay ma ducaale okay anisa yaa cizag alla yaa cizag anisa nuur magacaasi waa gadmay وانا سعودي رايدنا وبونا سعونا يهدو إلهي يرادو عبد مجدي رايدنا ومقع السعونا يا اوكي وحان سوقبنا يا نعيمة دعالي او يدو بوغن وحان سوقبنا او يدو بوغن دور بيج كاخر داي انا هو يا صوماليات او اددك او خدمية ددك دباتن انا قول كمينيسوتا نعيمة دعالي كسو دواو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام دمانتين عبد الحكيم إن أبتواكو سلامي هذه أخيار تماشي كجرتا بوغا ولا هرتا ولي من سو غادنين لكن جوجل كأيام وحن كأخري إلى 6 بيج مالهاس هاي إن أبيك وبريفيو ما ركتي أيوان كأخري اوكي نعيمي waxaan ka codsanayaa 6 page ee akhriday in aad dadka Soomaaliyeed ee ku dhageysanay aad u kala dhigdhigtid walaalo horta 6 page akhriyay horta intii hore introduction iska ahaa hooyadiisi aabihiisa isku barteen inay ma aragtay meelaha ay ku koreen qabiilka familigiisa uu sheegay hooyadii aabaha qabiilkeeda uu sheegay inay dad ma aragtay iska reer miya farmers ahaayeen oo lo iyo waxaas farmers yani laakiin maxaa la dhahaa lo badan ay lahaayeen xoolo dhaqato ahaa marka wuxuu yiri waxa aan la yaabay intaas caadi iska ahayd laakiin wuxuu yiri abaaraa dhacay xamar baanu nimi hooyaday baa taalada dhagax tuur soo ag istaagtay waxay la yaabanayd buu yiri ay sugaysay dhagaxa intuu soo tuuri doono waxay ku qaadatuu yiri way baxday gurigay aad way soo noqotay wuxuu yiri waxay ku qaadatay 1 week inay hooyaday ogaato inuu ninkan dhagaxa soo tuuraynin marka bahdilaada intaas leeg hooyadiis xataa wuxuu ka dhigay xayawaan camal okay taas waa qodob haye taas mid ahayd tii kale wuxuu yiri hooyaday markii xamar timi the city girls wuxuu yiri gabdhaha magaalada jooga waa la gudaa buu yiri laakiin gabdhaha baadiyaha jooga lama gudo marka hooyaday waa lagu qosqoslo waxa la yiri ma gudnid something like that waa hooyadiis ogow wuxuu yiri in the 60s ha wuxuu yiri hooyada 60meeyadii bay dhalatuu yiri ilaa 60kii 1960kii bay dhalatay exactly maalintii iyo bishii ma taqaano laakiin 60kii ay dhalatay markaan waa maama xaasa waa la qabaa waa 77 78 markuu ka hadlaayo waa hooyo xaasa oo la qabo oo qof weyna wuxuu yiri naag magaalada joogtay oo dadka gudda ayaa hooyada loogu yeeray marka markii hooyadii la guday meeqa jir bay ahayd buu leeyahay aabahay qabay adiga 77 markuu ka hadlaayo adigu wuxuu ku leeyahay markan xamar la yimi dagaaladii Ethiopia iyo waxaas la arkay abaartii daba dheer adigu waa 77 78 iska dheh ma garad most likely waa 77kii marka qofka 1960kii dhashay 77 waa 17 jir 18 jir qof ah laakiin waa maama xaasoo la qabo hooyadiis wuxuu yiri aabahay bay permission weydiisatay wuxuu yiri hal la gudo camal waa u ogolaaday islaantii baa la wacay xaawo wuxuu kaloo yiri magaalada waa laga gudaa gabdhaha laakiin baadiyaha gabdhaha lagama gudo yani right there waa been halka maxaa ka arkaa wax beena saddex dumar ah qabqabtay hooyaday waa la guday hadhowto maaragtay 15 minutes bay qaylinaysay marka walaal waa fiction ma garat ani waan wali dumaan buug waxaan rabaa inaan soo iibsado si fiican u akhriyo markaas laakiin kulle intaa baan ka akhriyay intaasna waan la yaabay naciima ducaale bacdama aad degan tahay gobolka Minnesota aad tahay hooyo Soomaaliyeed ahna dadka dhiban u khidmeeya oo aan ku ognahay dhamaantayo yani aad ogtahay sharafta aynu ku leenahay gobolka Minnesota maxaad kula talinaysaa Soomaalida degan Minnesota ee wiilkan u soo socdo wiilkan horta hadduu imaqlaayo ama message-ka uu ma dhageysto horta waa ogahay wiilka uu cusub yahay teeda kale haddana waxa kaloo yiri lottery aan ku yimi yiri wiilka lottery ku yimi okay lottery ha ku yimaado waa sax wuxuu yiraahday markaan Kenya joogay dhalashadayda aan Kenya imi 1 la iga dhigu yiri laakiin markaan Mareykanka soo galiyay waana bedasho dhalasho waxaan samaystay June something like that adiga June baan ka dhigtu yiri marka qofka markuu imanayo already waa qof diyaara oo la soo process gareeyay qofka markuu responsible ku imanayo ama lottery ku imanayo waa qof diyaara oo magaciisi iyo wixiisi dhan wata halkaas maxaa ka muuqata been kale qofka inuu wadanka gudihiisa iska dhiibo magaca uu bedeli karaa dhalasho wuxuu samaysan karaa inaad baytarka telefoonka iga dhacaya hawl yarna way soo gashay oo u baxayo insha Allah bidnillaahi kariim maxaad ugu dambeyn dadka Soomaaliyeed ku leeyahay
waxaan kula talinayaa wiilkaas yacni waxaad moodaa inuu always dadkiisa buug ha qora ma xumo maasha allah buug qor lifekaaga memoir ka qor biografigaaga qoro dhib ma laha laakiinse marnaba dadkaaga lama bahdilo hadda fiiri buuggaana wax yar ka wada hadlaynay aniga mustafa saa ogtahay waa nin bosniyaan odagayga wuxuu yiri waxaan ku iri buuggaana laga qor wuxuu dhahay Naciimo bosniyaanka dadkaygu yiri waa ogaay so many xumaan badan inay leeyihiin laakiinse wuxuu dhahay why will I dadkayga aan wax uga sheegayo yiri why will I dadkayga expose gareynaya yacni ها إلى ما اللي يراهدوا ده أدون كنا القصينا دتكيج حمانتو يعني أديك وناقش كين كرا you know like private لكن وحير واي دتكيج حمانتو ده بوك مقرايا أن أرادنا يا أو بوك وحي لقوا برنت جراينا و forever there مكتب ماشي سوي لي سوي مركو حاول تلينا يا دتك قفك يعني أمريكان نقو أو call me American حتى وحاول لا سقف صومالي نمدي ديدايا أو صومالي دي ليدايا وحما برتان waxba ma akhristaan waxba ma yaqaanaan waa dad yani waxyaabo badan uu ka aaminsan yahay oo qalad ah wadanku uu ku cusub yahay Soomaalida saa u garanaysid meel walba degaan walaal sharaf meel kasta degaan inta xun focuska saar hadda anaga Minnesota degan waa aragtay waxaan leenahay politician aan leenahay waxaan leenahay lawyer aan leenahay dhakhtaraan leenahay waxaan leenahay business people baan leenahay wax kasta yani for only 20 years saa u ogtahay yes years kaliya joogan haddana waa aragtay say meel walba u hagaajiyeen meel kasta uga muuqdaan marka inuu ma arkino focuska isagoo 4 sano kaliya wadanka jooga oo anaga dhanba naga dhiga ma aragtay yacni si ugu soo jiito si uu ma arkino cadaanka iyo ugu soo jiito believe me Cabdi Xakiin dadka markaad la degan tahay dadkan cadaanka aan la deganaa Mareykanka they will respect you markaad dadkaaga ixtiraantid luuqadaada ku hadashid laakiin si qof biibay haddaad tahay oo dadkiisa caynaya waxay ku dhahayaan kan waa wax dhintay isaga dadkiisa caynaya ma garat yaaron marka wiilka qurbaha waa ku cusub yahay wadanka waa ku cusub yahay marka aniga waxaan dhihi lahaa buuggan already published waaye shelfka waa la saaray laakiin hadday ma arkino aan la saari lahayn waxaan dhihi lahaa ku noqo buugga oo dib ma arkino u hagaaji laakiinse hadda hadalkan aan hadlayno buugaagta kale uu soo qori doono kolleeg inta kuma joogsanayo waxay noqonaysaa inuu si fiican uga fiirsado ma garatay next time anaga saas noo waxaynin xagga diinta markuu ka hadlay muxuu yiri weli diinta ma gaarin wala dhinacaas ma gaarin laakiin ma gaar inta un baan ka akhriyay insha Allah Naciimo waa tala aad u wanaagsan ugu dambayn insha Allah waa ka baxayaa live-ka waxaan idinkaga tagayaa kulligiin salaanta islaamka wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.